xaalka magaalada Beledweyne wuu qasan yahay maanta mar kale qarax xoogan ayaa ka dhacay gudaha magaaladaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaraha ka dhashay qaraxa iyo cidda lala eegtay waa halbeega wararkii warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doono xaalka magaalada Beledweyne qasarihii ugu xooganaa ee ka dhashay qarax ka dhacay maanta gudaha magaaladaasi iyo wararkii ugu dambeeyay cidda lala eegtay qaraxaas balse marka hore sii shargareeya muuqaalka nooleygna saara nagu soo biir oo follow-de page-keena Facebook ee halbeega wararka si aad ula socoto macluumaadka iyo wararka halkan aynu ku baahino waa hagaag aynu ku hormarne faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Beledweyne warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxyo xoogan oo goordhow ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaas oo jugtiisa si xoogan looga maqlay xaafadaha magaaladaasi qaraxa ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay maqaaxi u dhow xarunta gobolka Hiiraan oo ay ku yaalaan xafiisyada maamulka iyo kuwa Hirshabeelle wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyay qof soo xiray walxaha qarxa waxaana ka dhashay khasaare dhimasho dhaawacba leh xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan aad u kacsan waxaana gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo xiray meesha ay wax ka dhaceen weerarkan qarax ee loo adeegsaday Beledweyne ayaa ku soo aadaya xilli magaaladaas lagu wado maalinta birita ay ka dhacdo doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee hadda xaalku uu kacsan yahay qaraxan ayaana geystay saameyn weyn oo la xiriirta in dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya in qaraxan ay wax ku noqdeen ku dhawaad ilaa 10 qof oo shacab iyo askar isugu jiray dad intaa ka badan ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa si gaar ah uga dhacay sida la sheegay aagga xarunta looga aray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si gaar ah buundada liiqato aagga Lamagalaay ayuu ku dhow yahay qaraxa halka la beegsaday halkaasna waxaa degan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Gudlaawe oo Beledweyne jooga iyo kuwii gobolka Hiiraan xaalka ayaa hadda sii cuslaanaya dhaawacyadii iyo dadkii wax ku noqday qaraxa ayaa la dadgureynaya xilli weli xaaladda magaalada ay kacsan tahay waxaa ku sugan Beledweyne ciidamo fara badan oo dowladdu geysay magaaladaasi si ay u xaqiijiyaan amniga doorashooyinka lamana oga sababta keentay in qaraxan uu dhaco iyo cidda fududeysay in qarax uu soo galo magaalada Beledweyne maaha markii ugu horeysay ee qarax uu ka dhaco magaaladaasi balse waa markii ugu horeysay oo Cali Gudlaawe ku sugan Beledweyne uu qarax ka dhaco magaaladaasi waana arrin kale oo lagu cabsi gelinayo hanaanka doorashooyinka ee dalkan Soomaaliya iyo tagista Fahad Yaasiin ee magaaladaasi inkastoo Fahad Yaasiin ciidamo fara badan oo hordhac u shalay ay gaareen Beledweyne haddana halka qarax uu ka dhacay ayaa ah goobta uu degi rabo Fahad Yaasiin oo ku dhex taalla xarunta xerada Lamagalaay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed daawada halbeega wararka isha ku hayo la soco wixii warar ay ku soo kordhay qaraxan ka dhacay Beledweyne qasaraha inta uu leeyahay shaciyaan laamaha amniga iyo cidda ka dambeysay oo faayin kala duwan aan ka siin doono balse sidaad u aragto qaraxan iyo fikirkaaga waxa uu kula yahay noogu reeb qaybta hoose ee commentiska tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.